ليرو كهيبة قدن يعني كانت ليلة ناين بلودي برامج كسيدان وقادم مجنيني ودولة دي وسويني مركي دولة دي واحد أنا لو تقادم كريم يلا ما دي أنا نقول قان قادم بدي سومالي ولي بدي قبيل كل شو حديد من غير دي قبيل والله أنا هم يمكن إنه يلا كاس go-aanka aad qaadateen waa maxay go-aankan qaadan waxay tahay cid ikaan kiiskeeda lagu tuumayo daday ka dhasheen daday leeyihiin xanuunka ee aan anagu dareemayna si lamid in iyaguna u dareemaan dadkooda maraa ciqaabtooda hadda maadaama aanay iyagaan hadda si toosa loo heli karin hadda dadka aad haysaan waa imisa afar maxay keenin rag iyo dumar wax dumar kuma jiraan afar rag dhammaantood beledweyne aad ku haysaa mase meelo kale dhammaantood meelo beledweyne lagu hayaa ma hal guri baad ku haysaa mase xaafado kala duwan mid kale ishu waa meesha lagu hayo iyo inaan lagayna kuu sheegaynaa meesha lagu hayo inaad siiraysa wax macnaha kuma fadhiso waaya marka ma dhammaantood shalaad soo qabateen mise xalay iyo saakay dad aad qabateena ku jira saddex shalay ahaayeen fayl midaa lasoo qabtay kada waxaad nooga warantaa ikraan tahliil cidda ay ku maqan tahay waa dowladdii soomaaliyeed sida waalidkeeda oo sheegeen si gaara waxay ku maqan tahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dhallinyaradan ee aada qaraabada tihiin ee reer beledweyne isla ahaydeen gaar ahaan howlwadaag isla deganeydeen ee aan fahad aqoonin ee aan dembi gelin dowlad u shaqeyn maxaad ikraan darteed ugu qabanaysaa adduunkan waxay qof walba oo dembi samaynaya dadkiisu haddii ay ka aamusaan waxay qayb ka tahay inay raalli ka yihiin hadday ka hadlaan maxay ka geli karaan ma fahad ma yaqaano warkama yeelayo maxay ka galaan hadday ka hadlaan waxay ka galaan oo keliya inaysan isku aragti ahayn isku aara ahayn raallina aysan ka ahayn ayaa anaga noo caddaan lahayd laakiin marka ay faamilkiisu ka aamusaan oo wax odaya ama wax dhaqana oo aan ka hadlaynin aysan jirin oo isaguna uu wuxuu rabo tagrifada uu samaynayo macnaheedu waxay ka tahay marka inay ka wada saman yihiin anaga aan u qaadanayna laakiin waxa idinka sameynaya qabiil maha waa dowladdu sideedaba waxay ku salaysan tahay qabiil haddaa ogsoon tahay haddii kaleba waa garta nidaamka dowladnimada haddii la aamini waayo nidaamka qabaliga waa la aamini waaye dowladdii horeetaa burburtay nidaamkii dowladnimada markii la aamini waaye qabaliyaa laisugu imaaday dowladaa la dhisay nidaam qabaliyaa lagu dhisay haddii dowladdu ay wax ka hadlaadaan nidaamka qabaligaa dib loogu laabta waa mahadsantahay waa annaga dad islaam baa nahay diintu ma ogola qof dembi uusan gelin in loo dhibaateeyo dadka soomaaliyeed waxay leeyihin dhaqan waxay leeyihin akhlaaq intuba way xaaraan bay ka dhigayaan in qof aan dembi gelin loo dhibaateeyo heeb qof kale dembi oo galay ma waadnan ilaahay ka baqayn oo dhaqan ilaalinayn oo aydnan mas-uuliyad saarin waxaa kaa rabaa waa maastahay haddii diintu ay reebayso in qof aanan dembi lahayn dhib loo geysto ay diintu reebayso ogsoonow diintu haddana inay reebayso qof kasta oo dulmi raalli ka noqdo inuu dayis yahay inay raalli kiin ma adiga og yes ha raalli kiin wala dhacsan yihiin weliba aaraahooda si caadi ugu faraxsan yihiin weliba waxaan daawaday muuqaal aa shalay ka soo duubteen mid ka mida wiilasha wuxuu idin leeyahay haddaad idishaan oo ikraan darteed ii dishaan fahad ma i yaqaana ma qofkaasaa raalli ka ah in ikraan la dhibaateeyo annagu qoraallahan ka haynaa jira adiga long time xitaa uu qorayay bartiisa facebook uu ku qori jiray ninkaas hadda adiga aa sheegaysid isagoo la dhacsan aaraada iyo ahdaafta faadiyasi la dhacsan annagu hayna intii aad intaasoo culeysa iyo dhibaato isgelin lahaydeen sooma qurux badna waddo cad baad hadda haysaan waxbaa idiin muuqda rajaad leedihiin intaad suuq ama meel madow aad wax ku dili lahaydeen cidda wax idinkaga maqan tahay tuhunka hareeyey inaad ka raadsataan rajada 2 bilood iyo bar la sugayo oo ilaa hadda aan laga helin oo aan hadda kadib sugaynaa anuma garan karo waxa ay tahay dalkan madaxuu leeyahay madaxweynuhu leeyahay ra'iisul wasaaruhu leeyahay ilaa hadda kamaysan hadlin nimaheeda muwaadinkaasu xaq muusan lahayn sababta ay waadi laayeen maxay tahay كيف وقاضي يقريال ينامين أي شيء. أورر الجحساء waxay sheegeen inay gabadha ay dileen. Ururka argixisada ayaa way sida loo nabayo diiday. Ilaahay marka ururka argixisada ahaa hadduu sidaas uga falcelinayo ayaga maxaan ku tilmaami karnaa waa dad nooca xajada aan ka sugi karnaa oo rajada noocay noqonaysa ay shay. Waa garta. Xanta waxay tahay qof walba xanuun la dareensiyo si lamid ah xanuunkaas asna inuu dadka dareensiyo ku qasbayeen.
kumana ekaan doonto Fahad Yaasiin keliya iyo dadka uu asaga ka dhashay oo in loo dhibaateeyo. kiiskan waxay dowladda la sii geli doontaa kulanajiis taliyaha oo nabadda gobolka Banaadir Yaasiin Farey. haddii iyaga aan awood loo waayo oo la heli waayana familkooda xataa waa saameyn doontaa. kumana ekaan doonto dadka keliya dhalinyarada keliya kuma ekaan doonta dhalinyaro kaleto badana sabab ay u noqonaysaa inay dhibaato soo gaarto. maxaa hadda ka yeelaysaan ragga aad haysaan 48 saacadood haddii aan war jawaaba aan weyno ama xaqaa'iq rug yar meesha ay dhigtay ikraan dee wadada ikraan markay marayaan ma dareemaysaan ama ma la socotaan in dadka Soomaaliyeed badankood oo qabiilo kala duwan leh oo waliba qaarkood ay suurtagal tahay inay ku jiraan dadka hadda aad tuhumaysaan oo qabiilhan u beegsanaysaan inay idin garab taagan yihiin idin hiilinayaan ikraan xuquuqdeeda idin la raadinayaan soo marka dadka ay ku beelka inay ku beeliyeen sheegayso ikraan ay nagu garab taagan yihiin cadaalad sii weyn ikraan aad ii sheegaysid goorma ay markii ay dareemeen xanuunka ay xalay arkay Farxad Waadir iyo mid kale oo hadlaya goorma ay wadan laba bilood bar xagee jeed laakiin Soomaali badan ay garab taagan oo idinku baaqay laba bilood bar Farxad Waadir xilwan way iyadoo ka soo jeeda dadka maadaama ay gobolkan ka soo jeedo dadka hiiran laga soo doorto kamid yahay way xal markii lagu wilo haytiisa la qabtay laba bilood iyo bar waxa aamusan Farxad Waadir kaliya ahayna xubnaha baarlamaanka ku jira dadka siyaasadda kugu jira adiga ku matala ikraan matala kamid ah dadkii maqnaa ee la weysay aanan hadlin all you know waxaan ka rabnaa waxaad noo sheegtaa kuwaas qiimaha agteena kama laha mana sugi doono jawaab iyagu macnaha agteena kama lahan doonaan haddii annaga nabatayn ay nidaamka dowladnimada nagu matalayeen oo ay ka aamuseen hadda waxaan kuu sheegaa ama kuu qiraya inaysan arrinta hadda meesha balweye ka taagan aysan waxba ka geli karin kana hadli karin wax shuqul ay shaqaa aysan kulahayn dadaal baa socday oo wada hadal ah oo odayaashiina ugaaskiina ku jiray ma idin soo gaaray maxaa idin la yidhi xalay ilaa maanta anaga ugaaska sheegaysid hadda maba naqaanaba nin xamar iska jooga oo wuxuu raba iska sheegayo wey wax talaa iyo tusaalaha waan ka dhegaysanayna ma jirto waa maasanta nin dhalinyara tahay waxaa iyaga muuqata inaad xanuun iyo dhibaato aad ka dhaxasheen kiiska ikraan laakiin iyadoo dhibkaas oo idin haysto ma waxaad jeclaateen oo caqligiina iyo akhlaaqdiina idin siisay qof walaalaho idinla deganaa aanan Fahad aqoon oo aan dambi gelin inaad dhibaataysaan mama Soomaaliyeed waxay tahay kaliga waa la warar waa lagu leeyahay wanaag way inta kaliga wareysay lahayn kaliga aan muruga dareemay dadka nala dareemano meedka xunno sheega waan helnaa wada saxa ikraan xilliga dhimatay goobta lagu dilay qofka dilay meedkeedii in maxkamadda soo taago qofkaas kadib aan lagu qanci karnaa xitaa maxkamadda hadii si deyn doonto iyo dikala tago hanaag galma laakiin qof soo muuqda dembigan loo haysto waan ahayn يا إذنك أحد يقول جيش وكل يقول أنا كنا إن حلقة عايز نسوي محمود نسوي حتى وهي سبب دوتا حد بدنيا بدون برلمان كلا بعد كشبل وحد اللي يدنا هم مثلا وحريصه نظام كنشبل العدالة السوسية يصير كالجوس ودين لا شيء أنا شيء نبغى بدون نشوفنا هو أن هيسنا ولا بدون القبيلة اللي وشوفها النظام فدولي جا وحكى أول نظام كقبلي جا عشان التركيز أكو حساس متاش